بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد داوديال كسو دوادا برنامج كمان قدلين ميل والبا دونيدا كداونيسان برنامج كمان قدلين وبرنامج aan kusoo qaadano murtidaas oo godlay samaanka yaga ana ka helna dhiirigelin ina dhaqaajisa oo na gaarsiisa meel dhaadheer ay noogu jirto dheef adduun iyo mid aakhir labadaba maanta mowduuca aan ka hadlayna ciwaankiisu waxa weeyaan raadraac ruuxdaada noole naftaada raadraac ruuxdaada noole naftaada walaalayaal waxaan ognahay bini aadamka rabbigii abuuray subxaanahu wa tacaala inuu u abuuray si unique ah maxaa yeelay rabbi subxaanahu wa tacaala isagaa unique ah isaga ayaa ah al-axad qul huwa allaahu axad allaahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad alle ma aha waaxid ma aha alle waa alle al-axad ah luqadda carabiga ahna واحد يحظى الوكالة سارة معني أحد لماذا وحي كينيسا إنه الله سبحانه وتعالى وحوى البقار أوليه أو وح أدقمه يوح لمده يوح شابها وحنا أسنشرين سيدو كلا أشياء ذا أما معني مخلوقات ككلا أو ربيان وأبوري يقولون وايونيك سيوحوا أبوري يونيك وأنا وناجية صنع الله الذي أتقن كل شيء waxyaalaha uu aad u karaameeyay uu wanaajiyay uu qiimo gaar u yeelay waxa kamida bini aadamkana wuxuu ka dhigay Allah subhanahu wa ta'ala unique muuqaalka yagaan guud oo jirka ah qaabku u sameeysan yahay waa unique fingerprint-keena oo macnaha gacmaha faraheena waa unique weeyaan codka yaga waa unique weeyaan footprint-kaada unique weeyaan waxa xitaa unique ah oo hadda la ogaaday qaraacitaanka wadnahaada heartbeat-kaada wadnaha soo qaraacayo waa unique wuxuu caalamka hadda marayaa inuu yiraahdo qaraacitaanka wadnahaada ayaad bari waxaad ku furanaysaa gaarigaada waxaad ku furanaysaa iPhone-kaada ama smartphone-ka wadatid waxaad ku furanaysaa gurigaada geerishka gaariga markaa baargaraysanaysid qaraacitaanka wadnahaada ayaa ku furanaysaa oo bracelet qofkii loo xirayaa bracelet-kaas la shaqeynaysa qaraacitaanka wadnihiisa taas markaas kugu furaysa password ku sameynaysa qaraacitaankaas isaga oo khaaska ah waa cilmi hadda dadka qaarkood marka ay maqlaan ay la yaabayaan laakiin shalay markii la dhahayay Apple baa waxay soo saaraysaa inaad iPhone-kaada aad ku furato fingerprint-kaada waa la yaabana laakiin maanta waa isticmaalna marka waa wax imaan kara waa wax marka mucjisooyinka Allah subhanahu wa ta'ala kamid ah waxyaalaha kale uu abuuro dhanna waa sidoo kale marka waxaan rabnaa inaan maanta ka hadalno ruuxdayada ruuxda bini aadamka iyo naftayada sida inaan fahanno qaabka u wada shaqeeyaan hore waxaan ooga soo hadalnay wadnaha iyo caqliga ka soo hadalnay haddana waxaan ka hadlaynaa si aan u dhameystirno shanta qaybood uu bini aadamka ka kooban yahay waxaa la yiraahdaa saddex labana si gaar ah macnaheedu looga sooca oo labada jirka ku jirta wuxuu ka kooban yahay ruux bini aadamka ruux wal nafs wal jasad oo ah ruuxda nafta iyo jirka waa spirit soul and body saddexda marka sidaad u fahanto qaabka u shaqeeyaan ayaa waxay ku xiran tahay saraha aad u kici karto oo aad macna aad horumarka aad gaari karto iyo hoostaadaba waxay ku xiran tahay inaad fahantid naftaada oo aad fahanto ruuxdooda oo aad fahanto baa waxay keenaysaa inaad ummadda inteeda kale fahantid caalamka aad ku nooshahay aad fahantid markaasna ay waxyaalo badan ku furfurmaan oo noloshu ay ku sahlanaato marka waxaan leenahay walaalayaal ruuxdu Allah ka waramay waxaana la yiraahdaa ruuxda waa macnaheedu Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku karaameeyay bini aadamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu leeyahayna wayasalunaka 'anil ruux qul ar-ruuhu min amri rabbi wama utiitu min al-'ilmi illa qalilan wuu ka hadlay culimadu markay tafsiiraan aayadaas waxay dhahaan ruuxdu waxay la mid tahay macnaheedu sirta ama culumta uu rabbigeen subhanahu wa ta'ala uu la gaar noqday oo qof ka warqaba oo yaqaan oo cilmi kale ka haysta ma jiro bini aadamku macnaheedu jirki bini aadamka wax badan bay ka barteen macnaheedu sida aqligan u shaqeeyo saan sheegnay wadnaha u shaqeeyo kaliyaha u shaqeeyaan xubnaha bini aadamku u shaqeeyaan wax badan baa laga bartay maanta laakiin waxba laga ma baran ruuxda
hase ahaatee culamaa waxay keeneen oo ka hadleen macno kale oo macnihii runtii aad u muhiim ah oo annaga hadda waa u baahannaha inaan ka qaadano murtida guud oo ah ruuxdu inay ka mid tahay awaamirta alle ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadka uu abuuray iyo awaamirta uu leeyahay bay ka mid tahay ruuxdan marka waxaan leenahay ruuxdu waa sir uu rabbi subxaanahu wa tacaala bini aadamka uu geliyey la rabana ruuxdaa inay ka soo saarto sirta kownkan uu rabbi ku qariyey oo caalamkan ku sugan oo dhulkan iyo cirkan iyo waxa ku jira ah ruuxdaada ayaa ka soo saaraysa ruuxdu waxa weeyaan walaalayaal ee ku shaqaysaa amarka ilaahay macnihii ma raba inaan hadda macluumaad badan oo laga hadlo ruuxda iyo maaragtay aaraa kala duwan oo looga hadla ruuxda kutubo badan oo laga qoray inaan macnaha aan hadda inta kaga hadalno si yar oo kooban baan usoo sirdinayna haddii ilaahay idmo aan kaga hadlaynaa xikmadana aan ka qaadanayna oga danleenahay oo ah walaalayaal ruuxda inay tahay alle subxaana wa tacaala makhluuqaadka u abuuray alle waa isaga dhahay alaa lahu alkhalqu waalamru sida alle subxaana wa tacaala hadda samada u abuuray oo dhulka uu u abuuray oo awaamirta alle ugu shaqeeyaan bay ruuxda bini aadamkana awaamirta alle ugu shaqaysaa wuxuu rabbi amre ugu shaqaysaa waxaan leenahay bini aadamka waxaa arkaysaa qof nool ay nafi ku jirto laakiin ayna ruux ku jirin dhaqdhaqaaq kuma jiro qofna waxaa arkaysaa ruux khayral caadiya in la geliyey oo dhaqdhaqaaqiisa ay aad u badan tahay hadday tahay xagga maskaxdiisa iyo waxyaalaha uu curinayo ama hadday tahay afcaashiisa iyo waxyaalaha uu samaynayo waxa ay noqotaba qof baa waxaa la gelinayaa ruux aan inaba caadi ahayn maalan hadda nalkan qofkii soo saaray oo la yidhaha Thomas Edison waxaa la yidhaahdaa intaas oo kun oo jeer buu maaragtay uu ku maaragtay fashilmay mar baa la yidhaahdaa 1000 jeer baa la yidhaahdaa mar 10,000 baa la yidhaahdaa riwaayaad kala duwan baa ka imaatay murtida laakiin waxaa weeye inuu wakhti badan uu maaragtay isku dayay oona macnihii ka daalin oo markii la yidhaahday warniyo waa ku feelgarowday waa ku fashilantay nalkaane ma aad iska daysid wuxuu yidhi ma ku fashilmine waxaan ogaaday 99 shay uusan nalkan u shaqayn ama riwaayadaha qaarkood macnihii 999 goor uuna shaqayn karin baa ogaaday waxa ay noqotaba ruuxdiisii waxay noqotay inuu saa u wado ilaa ay maaragtay uu ka soo saaro nalkii dad baa waxaa la geliyey ruux inay gawaarida soo saaraan sida macnihii Henry Ford oo kale iyo maalan wuxuu yidhi Henry Ford oo kale waxay ku fakireen inay dhahaan warniyahow waxaan isticmaalnaa fardaaba wakhtiga la isticmaalayay waxay dhaheen marka inaan soo saarnaan rabnaa horseless car vehicle oo horseless ah aanan macnihii aanan gaari aanan faras wadin baan soo saarayna marka waa la yaabanaa motor ordaayo in la soo saaro oo gaari dameerkii la iska daayo arrintaas waa lala yaabanaa laakiin markii la isku dayay oo la waday qofkan ruuxdiisii injiinka la saaray baa aan macnihii غير العادي ahaa gaarigaasaa laga soo tuuray Wright Brothers ka soo saaray macnihii maalan diyaaradda ruux gooniyaa la geliyey maxaan ku yiraahdaa telefoonka ay tiknoolajiyada ka soo qaado waxa la maanta adduunka la isticmaalayo qof bini aadana ayaa la geliyey wabilcagsi waxaa arkaysaa qof bini aadana oo nool laakiin iska qabow oo fadhiya oo aan macna waxba qabanayn haba yaraatee wax uu qabanayo iyo wax soo saar uu leeyahay uusan jirin oo baaridam iska marka walaalayaal ruuxda waxaan leenahay alle subxaanahu wa tacaala markuu aabbahen aadan abuuray oo uu malaa'igta u sheegay uu yidhaahday innii khaaliqun basharan min tiin waxaan abuurayaa bashar oo dhoobo ka abuurayaa wuxuu yidhi fa idaa sawaytuhu wanafakhtu fiihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin markii aan macnihii aan simo oo abuuritaankiisa aan dhammaystiro oo aan ruuxdayda ku afuufo u sujuuda karaamo la karaameynaya bini aadamka marka sujuudi la yidhi u sujuuda min ruuxii buu rabbi subxaana wa tacaala la yidhi ruuxdaa rabbina uu isku idaafeeyey waxay ka dhigan tahay sharaf waa tashriif macnii maaha laakiin sidaad gaalada u isticmaalaan kulo krishtanka u isticmaalaan macnii ay leeyihiin macnii nabiyullaahi ciise macnii waa ruuxdii ilaahay oo waa qayb ilaahay ka mida ma ah waa sida macnii hadda baytullah iyo loo yiraahdo أو ما عرفتي لو يا ناقة الله أو كليه وشيء على مر معني وقيمة جونية وسيو والشرفيو أي اسكو إضافية مركز الروح ذا بين آدم كوا روح شرفا أو كراميسا أو كل شقين يسا أمرك على سبحانه وتعالى
marka annagana aabbaheen dhoobada la soo dhaafay oo bin aadamka lagu abuurayo macnihii minka hooyadii lagu abuurayo ama caloosha hooyada lagu abuurayana waxaa la yidhaahdaa malag baa loo soo diraa waxaan naqaanaa malakul mowt laakiin waxaa loo soo diraa malakul xayaa malag baa loo soo dirayaa ku afuufaya ruuxda ku afuufaya markuu ruuxda ku afuufo baa la qorayaa oo la amrayaa malaga inuu amro uu qoro bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyin aw saciid kama qaala sala allahu calayhi wasalam malagaas markii uu nafta ku abuuraba uu ku afuufaba ilmaha yaroo caloosha ku jiro baa waxaa dhalanaysa naftii baa dhalanaysa oo ruux naftaa waxaa la yidhahdaa marka waxay ka dhalanaysaa ruuxda iyada ah waxaan leenahay ruuxda iyo naftu waa kala duwan tahay dadka qaarkood mid bay ka wada dhigaan laakiin aad bay u kala duwan tahay siduu noo imaan doontaba ilaahay marka uu ruuxda lagu abuuro oo lagu afuufo qofka bini aadamka ay nafi ay gasho baa waxaa la qorayaa wax allaale wuxuu quudan lahaa bikatbi risqihi inta uu noolaanayo wuxuu cuni lahaa dhan waa la qorayaa waxaa kaloo la qorayaa ajashiisaa la qorayaa waxaa kaloo la qorayaa waxa uu ku dambayn doono inuu qof liibaana oo successful noloshaan ku noqdo iyo qof bacaw ah oo shaqiya inuu noqdo waa la qorayaa marka waxaa leeyahay ruuxda marka lagu abuuraba baa waxaa la amrayaa risqigiisa marka adiga haddii qofkaan risqigiisa beri la gelin doono inuu noqon doono saan hore u sheegnay kii nalkaan soo saari lahaa oo nalkaa markaas hadhow risqigiisa ka soo bixi lahaa ama gaariga soo saari lahaa ama macnihii guryo dhisi lahaa ama wadooyin dhisi lahaa ama technology keeni lahaa wax allaale wuxuu risqigiisa noqon lahaa meesha uu ka kasban lahaa rabbi subxaanahu wa tacaala markaas ayaa loo qorayaa qofka uu rabbi adduunkan waxa uu raba inuu keenana ku sababayana waa la qorayaa wuxuu uu keeni lahaa oo maalan hadda macnihii Steve Jobs inuu macnihii iPhone-ka uu soo saaro oo caalamka dhan laga isticmaalo rabbi baa qoray laakiin waxaa sabab looga dhigay isaga inuu soo saaro marka adiga waxaa tahay unique rabbi subxaanahu wa tacaalana wuu qoray wax allaale wixii aad qaadan lahayd isagaana kugu hanuuninaya adiga oo wax allaale wixii lagu qoray aad qaadanna qabri ma gelaysid sidoo kale wax allaale wuxuu rabbi kaa qoray oo raad ah oo lagaa reebayana adoo aan lagaa reebin macnihii dhulka ma gelaysid oo ma dhimanaysid saas ogeed buu rabbi subxaanahu wa tacaala marka qofka bini aadamka oo caloosha intuu ku abuuro oo bannaanka la soo dhigo uu joogo baa rabbi wuxuu sameeyaa inuu ku hanuuniyo oo wax allaale wuxuu bini aadamka uu qaban lahaa lagu hanuuniyo rabbi subxaanahu wa tacaala waa isaga dhahaya sabbix isma rabbika alaclaa alladii khalaqa fasawaa walladii qadara fahada rabbi muxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala isagaa sarreeya oo ceeb oo dhanna macnihi saliimkaa subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay alle waa allaha ina abuuray wuxuu sameeyey alla subxaanahu wa tacaala khalaqa sabbix isma rabbika alaclaa alladii khalaqa fasawaa والذي قدر فهدى خلق فسوى فقدر فهدى وأبوري مركو كو أبوري ساكا مدين أبورتان كذو وناجيه markaasuu haddana wuxuu sameynaa rabbi subxaanahu wa tacaala markuu wanaajiyo uu ku sameey wuxuu kuu sameeyey inuu kuu qoro wax allaale wax aa qaadan lahayd markuu saa kuu sameeyo buu haddana wuxuu sameynayaa wax allaale wax aa qaadan lahayd inuu kugu hanuuniyo sidaa darteeda fircoon markii uu nabiyullaahi muuse uu yidhi rabbigaa waa kee nabiyullaahi muuse wuxuu ku jawaabay rabbuna aladii acطaa kulla shayin khalqahu uma hada rabbigay waa rabbiga khalqiga abuura oo haddana ku hanuuniya waa cajiib haddaa marka fiiris adduunka qaabku u shaqaynayo qaabku alle subxaana u amrayo qaabku wax kala socdaan waa cajiib waxaa arkaysaa hadda maalan saan sheegnay samada ilaahay baa abuuray qaab bay u shaqaysaa oo rabbi subxana taala ugu talagalay dhulkan ilaahay baa abuuray qaab bay u shaqaysaa oo rabbi subxana taala ugu talagalay bini aadamkan ilaahay baa abuuray qaab ayay macnihii ay u shaqeeyaan oo rabbi subxana taala ugu talagalay badahan sidoo kale amarka allayna ku shaqeeyaan oo alle subxaana wa tacaala marka uu macnihii hadda maalan dhulkoo kale rabbi markii uu yidhi waan abuuray dhulkii oo laba beri baan ku abuuray laba beri oo kalena waxaan ku abuuray inaan buuraheedii ay ku macnihi ku istaagi lahayd aan ku sameeyo maaragtay aan risqigii laga qaadan lahaa bini aadamku ka qaadan lahaa dhan aan maaragtay aan ku abuuro aan barakeeyo markaas wuxuu ku dhahay faqaala laha walilardi itiyaa tawcan aw karha qaalataa ataynaa taa'iciin dhulkii buu la hadlay rabbi subxana wa taala wuxuu ku yidhi ii imaada ama idinkoo mutiiciinoo i ogol imaada
ama idinkoo mukrahiin ah oo macnihii qasab ku imaada iyo sanduul ku imaada markaasay waxay dhaheen qaalat sa'atina taa'iciin waa nimaanay rabbiyo marka qaabkay ugu imaanayaan rabbigeen rabbi waa qaab uu garanaya amarka alle ku imaanayaan sidoo kale markii qoom dhan la halaagay oo rabbi quraanku kaga sheekay uu baabi'iyay wuxuu yiri famaa bakati samaa'u dhulkii uma ooynin wal ardu macni famaa bakati samaa'u wal ard wama kaanu munzariin dhul cirkiina uma ooynin samadii dhulkiina uma ooyin dad loo kaadiyena ma noqon waa la halaagay hore loo halaagay marka qaabkii macni samadu ooynaysa culimada qaarkood waxay dhahaan samada rabbi subxaanahu wa tacaala macni caalamka samada ku nool oo malaa'igta baan u ooynin culimada qaarna waxay dhahaan waa oohin ay dhulku samadu ooynayso laakiin waa oohin rabbigan uu yaqaan sababta taa wax alaal wuxuu rabbigan abuuro qaab ay u caabudaan oo awaamirta ay u fuliyaan anagu laakiin ma garanayno wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum shay alaal wax Allah abuuray waa alle caabudaan oo tasbiixsadaan laakiin anagana fahmayna qaabka u shaqeeyaan marka waxaan leenahay walaalayaal ruuxdan waa khalq Allah subhanahu wa ta'ala abuuray waxaana rabbi subhanahu wa ta'ala ugu talagalay ruuxdan in adduunka ka soo saartana way ka soo saaraysaa amarka rabbiyana ku shaqeynaysaa ruuxda marka wuxuu bin aadamka sharaf ku leeyahay qiimo ku leeyahay in uu ruuxdu ay ku xirnaato rabbigeed samada ay ku xirnaato markaas waxay helaysaa xikmadda iyo murtida ayay helaysaa tan kale oo ruuxda ka dhalatay aan dhahnay oo marka bin aadamka lagu afuufo nafta macnaheedu ruuxda lagu afuufo ay dhalato oo nafta ah iyadana qaybteena labaad ay noqonaysaa insha Allah ta'ala markaasaan ruuxda nafta iyo nafta waxa ka dhasha oo iyadan ah personality shakhsiga baan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala